waxaa la focus gareeyay oo dhaqsi loo abuuray meel ay iska register gareeyaan oo online ah ayaa si dhaqso ah loo sameeyay taas waxaa haddaba iska register gareeyay dad kor u dhaafayo 460 waxaan rajaynaynaa in registrationka uu sii socdo waxaan also raadinay goobaha ugu suuragalsan dadkaas in evacuation looga sameeyo oo ay u soo dhawaadaan waxaa ka mid ah magaalooyinka Kadaarif oo u dhow xadadka Eritrea iyo Ethiopia iyo magaalada Kasabala labadaas magaalo ayaan hadda si hore dhac ah ula wadaagaynaa shacabka Soomaaliyeed ee Suudaan degan